xubnaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo dhawaan ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug iyaga oo runtii u kuurgalayay ama ku hoolanaa sidii gacan ugu geysan lahaayeen wada hadallada shirka oo wada tashiga halkan ka socdo ayaa maanta ka soo saaray xaaladda maanta uu marayo shirka iyo marxaladda dalka uu marayo baaqaas oo soo baxay 22 Juulaay guddiga isu taga ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada u ololeeya nabadda xuquuqul insaanka iyo dimuqraadiyadda oo ka kala socda dhammaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxa ay ku hoolanayeen xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee hareereeyay qabashada doorashooyinka la filayo inay dhacaan 2020-2021 guddiga isu taga bulshada rayidka waxa ay soo dhaweeyeen shirka wada tashiga ee loogu dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug kaas oo lagu isugu yimaadeen madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waxa ayna go'aansadeen inay goobjoog ka ahaadaan shirka iyagoo u soo diray xubno ka wakiil ah guddiga isagoo gudanaya waajibaadkiisa oo loo idmo waxa ay ku soo biireen shirka wada tashiga ee dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee ka furmay magaalada Dhuusamareeb iyagoo isu soo xilqaamay waxa ayna shir la qaateen inta ay joogeen madaxda dawladaha federaalka oo ugu horeeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka dhammaan oo kala socda Puntland Koonfur Galbeed Galmudug Hirshabeelle iyo Jubbaland dhammaan waxay shirkaasi la qaateen ahaayeen shirar ay u kurgalayeen xaaladda maanta dalku marayo iyo nidaamka doorashooyinka dalka laga filay inay ka dhacaan xubnaha bulshada rayidka waxa ay la wadaageen mas'uuliyiintaas dareenka shacabka iyo rajada laga qabo in mas'uuliyiinta ku heshiyaan wixii dan u ah ummadda Soomaaliyeed suurtagalna ka dhigi kara in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo wada ogol ah waxayna ugu baaqeen go'aanadooda ah in wada hadalladu ka yeeshaan khilaafka siyaasadeed u dhexdooda ka jira waxa kale oo ay kala hadleen muhiimadda bulshada rayidka u leedahay ka qaybgalka shirka wada tashiga iyo doorka kaga aadan u helidda muranka siyaasadda xal u helidda muranka siyaasadda bulshada rayidka waxa ay ka xun yihiin in madaxda Soomaaliyeed isu koobaan shirka isla markaana laga xadido xuquuqda shacabku u leeyihiin inay ogaadaan xogta shirka si ay talo ugu yeeshaan xubnaha bulshada rayidka waxa ay xasuusinayaan madaxda ku shirsan magaalada Dhuusamareeb in maanta dalku ku jiro dhibaatooyin ay sababeen dagaalo beeleedyo ka dhaca meelo ka mid ah dalka fatahaado sababay dhimasho iyo barakac cudurka COVID-19 oo dib ugu soo cusboonaaday meelo ka mid ah dalka shaqo la'aan baahsan oo dalka ka jirta iyo dabeelo ku dhuftay meelaha xeebaha ah marka in madaxda ku shirsan magaalada Dhuusamareeb inay u jirnaxaan dadkaas ay matalaan fududeeyaan go'aanka gaarista keeni karto farxad oo ummaddu ku farxdo go'aankaas bulshada rayidka waxa ay shacabka Soomaaliyeed la wadaagayaan dareenkooda ah in ay shirka wada tashiga Dhuusamareeb caqabadaha ugu weyn ee ku xeeran in ay yihiin is-aaminaad la'aan iyo qof walba oo ku dhagan yahay aragtidiisa ku dhisan kooxaysi iyo tanaasul la'aan bulshada rayidka waxa ay walwal ka muujinaysaa in iyadoo xilli sharciyeedka dawladda ka harsan yahay muddo ka yar 3 bilood in madaxda dalku waqti badan ku lumiyaan isfaham la'aan iyo is-aamin la'aan ka yeeshaan sidii dalka loogu qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah danta shacabkan ku jirto haddaba bulshada rayidka waxa ay soo jeedinaysaa baaqan hoos ku qoran in hogaamiyaasha dhaqanka iyo nabadoonadaba culamo diinka waxgaradka haweenka dhalinyarada iyo qurbo joogta ay culays ku saaraan madaxda ka shirsan magaalada Dhuusamareeb inay ku kala tagin shirka kaas oo kana soo saaraan heshiis dan u ah ummadda Soomaaliyeed in madaxda Soomaaliyeed ay ku kulansan Dhuusamareeb ay dantooda gaarka ah ka hormariyaan danta guud una tanaasulaan shacabkooda isla markaasna ogaadaan
in talada lala leeyahay in saaxiibada iyo taageerayaasha beesha caalamka ee Soomaaliya ka yeeshaan aragti midaysan oo u horseedi karta taageeradooda inay noqoto mid wax ku ool ah horseedi kartana ku taageeraan Soomaaliya helid deganaansho iyo dhameystir dhismo dawladnimo oo Soomaaliyeed. ugu dambeyn bulshada rayidka waxay u mahadcelinayaan dawlad goboleedka Galmudug iyo shacabkooda oo taageero dhinac walba ah la garab istaagay shirka wada tashiga ee magaalada Dhuusamareeb kana rajeynayo in loo abaalgudo oo shirkaas uu noqdo shir nabadeed oo ka soo baxo go'aan la isla wada ogol yahay oo dadka Soomaaliyeed danta ugu jirto.